الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر الأحبة waxaan su dardaarmaynaa mar waliba inaan xasuusnaano ilaahay cabsigiisa maanta waa adduun berrina waa aakharo inta loo noolaanayo waa maalmo kooban qof walba inaga midihii keligii buu dunida yimid isagoo qaawan keligii buuna godka iyo qabriga geli doonaa wax kastoo tiri ama samaysay diiwaan aan waxba halmaamaynin buu ku qoran yahay waina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun wixii aad tiri iyo wixii aad fal samaysay diiwaan aan waxba ka lumaynin baa godka keligaa kaaga horeeya godka waa ciriiri waa madowya labadii maradee munkar iyo nakiirna way ina wada sugayaan daqiiqad kasta iyo sakan kastaba kii kugu dambeeyuu qof waloo inaga midahu noqon karaa cid jumcadan tukan doonto nabad kuwa ku tukan doonta ilaahay baa yaqaan waa hubnaa inaan tegi doono laakiin inta laynoo soo jira ma naqaan waqti kastoo dhimata waxaad mar walba sawirataa adoo imikana geeriyooday wixii aad samaysay ama aad ku sugnaydna ilaahaaga la hortegay god madowaan tol iyo qaraabo lahayn qabiil iyo reer lahayn urur iyo koox iyo shirkad lahayn saaxiibbo lala sheekaysan aan lahayn cidi aan wax kuu tari karin cidina aan kula soconin keligaa waxaad samaysay su-aasheedu kaa horayso meel loo cararo malaho intaa aragtay ciriiriga laysgerinayo waa aragtay meel loo boodana malaho ciidda korka kugu jeclaabaa kaaga rogay dadkaad u dhimatay eed u dambaabtay ee dhiig xaaraana u daadisay ee xoolo xaaraana u kasabtay waxa ugu fiican ay kuu sameeyeen waa godkaa ciriiriga inay ku geliyeen ciidda xoogga badanna kugu rogeen inay ku geliyeen oy kaa faraxasheenna ay ku farxeen oo uu leeyahay markaan hadda guriga tagatan iyo xalayo maanta oo dhan baan aaska u taagnaayo baan nasanayaa waxaad ku tacab khasaartayna dad qaybsanayaan adiga iyo wixii aad dembi gashayda kelitaho laguu soo galbiyey waxaa mudan tahay cabsida ilaahay ka dhigan tahay qof walbo inaga mida inuu xasuusnaado cabsidu laba tiir bay leedahay inta dhaqanka muuqata wixii waajiba inaad ilaaliso oodan dayicin wixii xaaraan ahaana inaad iska ilaalo oosan fudaydsanin shirkiga kadib xaaraanta ugu weynee qof muslima uu galo waa dhig muslimoo xaaraana uu daadiyo uu qayb ka noqdo midaf ku taageera iyo midkii maal ku taageerana waa la dembi ka wax dilay bay la dembi yihiin dembi aadan samaynin oo mid lamida qaadaaye waa markay inagu soomaali baa nahoo qabyaaladu intay naga badato dad dulmi isku laynaya iyo qof dulmi lagu dilay oo muslima aad garab ugu noqoto hiilo koox qabiilkaasi ama magac reer ha noqdo abtira ama magayadan qabiilka deegaanka ee laanlaanka inugu soo kordhay ha noqdaan markaad garab ugu noqoto dulmiga adna daalin baata markaad dembiga ku faraxdo adna dembiilaata marka adigoon meeshaba joogin baa dhici karta la dembi inaad noqoto kii dembiga galay saas darteed waxay mudan tahay adiguna inaad iska ilaaliso qofkaad ka qaban kartana ka qabato kaadan ka qaban karinna uusan bele iyo dembigu ku jiraaye ku galaafanin uusan kugu jiidanin haddii isagu ay dhacday inuu dembigiiyo doortay naar inuu doonto inuusan adigana ku jiidanoona naar iyo dab ku gelinin oo tiraada warardi dhaaf haddii aan jannada kuuji raacaynin iyo alla ka cabsiga badaa ku raacday dhaaf inaad tiraahdo intaa haddaan samayn lahayn ma liibaanaha lagu liibaanay waan ka badbaadi lahayd nin baad xukunkiisa difaacaysaa nin baad xoolihiisa xaaraana u dhimanaysaa isagana xukun iyo waadii iyo daaruu kaa dhisanaya adna waxbaad u dilaysaa marka lagu digana naar baad u gelaysaa
laakiin qur-aanka ilahi wuxuu ina baray dadka saas oo kaleetaa tan iyo aakhara naarta hadday galaan xataa saasay maanlaawayow u ahaanayaan. kuwa maanlaawaha ah ee diintoodii iyo aakharadoodii dad kale dunyadood u gubaya waa dad la magarato oo laga rooyay xataa naarta hadday galaan oo kuway naarta u galeenna loogu keeno weli inuu wax tari karuu moodayaa. qaala aladiina istudcifuu liladiina istakbaruu kuwii la watay kuwii dambiilayaasha haya wataba waxay ku dhihi doonaan hal antum muqnuuna cana min cadaab illaahi min shay. war cadaabkan aan ku wada jirna waaba ku wada jirnaaye wax ma nooga qaban kartaan? xataa garashadeedii ma laha war hadduu wax qaban karo isaga cadaabka wax iska dhicin lahaa wuu kula jiraa. markaasuu wuxuu leeyahay cadaabkan wax ma iga qaban kartaa? waa la xukumay, qiyaamaa la maray, naar baa la galay, naartii wuu kula jiraa, weliba wax tari karuu sii moodayaa. kanaad moodaysa inuu wax ku tari karo waa garasho la'aan, waa makas dadkaasi, waa ma liibaanayaal. nin baad u dhimanaysaa, muslim u dilaysaa, maalkiisa u dhacaysaa, sharaftoodii waxooga dhacaysaa, hebel xukunkiisaad difaacaysaa. su-aasha ilaahay hebel baan difaacayay jawaabkuu noqon maysa aad ku badbaado. dadkaa muslimiinta ee islaaynayaay kala qabashay leeyihiine isku dir ma laha. wanaag baa laga shaqeeyaayo wuxuu ku fiican yahay muminku qof albaabada sharka inuu xidhana ka shaqeeya, kuwa khayrka in la furana ka shaqeeya inuu noqdee inuu fitnooliya naarafuuf noqdo ma wanaagsana. waxaan soo marnay ilaahay inuu ina yidhi khudbooyinka ka soo sheekaynay muslimiintu hadday isqabtaan faaslixuu baynahuma, war heshiisiiya, kala dhexgala, wanaagga ka shaqeeya. wax lagu kala saarana xukun sharci ilaahay baa ugu habboon. waxaa maanta ka dhacaya hadda maalmahan ay ugu heedalhays badan tahay, meelo kalena kuwo kaloo yaryaroo badan baa ka socda. shalayna kuwo kalaa socbanaa, berrina kuwo kalaa iman doona. waxaasoo dhan oo hadda ay soomaali ugu hadalhays badan tahay waxa ka dhacaya aagalaas aano waxay xasuusisay markay Itoobiyaanku bakaaraha madaafiicda ku garaacayeen. waxaan lahayn ciil horay qabeen oo waa gaalo, muslimna ciil bay u qabeen, soomaalina ciil kale u sii qabeen oo colaad raagtay oo guweyn baa ka dhaxeeya. kan laakiin hadda masaajidda iyo guryaha iyo isbitaalada madaafiic lagu garaacayo war dadku gaalana ma aha, waana isla Soomaali. in badanoo ka mida waxaa laga yaabaa isu abti iyo ilmaabti iyo seedi iyo isu awow inay yihiin, laakiin ummadda shaydaan hadduu duufsado, shaydaanku hadduu dadka duufsado, nin shaydaan duufsaday wax walbaa ka suura galaa. arkayseen baan u malaynayaa masaajid madaafiic ku dhacday, isbitaallo ay ku dhacday, xaafado ay ku dhacday. waxaan filayaa waayahan dambe maalin baa khudba halkan ka akhriyo yidhi maalinka igu farax badnaa waxaa ka mid ahaa markay maqalo madaafiicdii ku dhacaysa. ciidankii xamar bakaaraha madaafiicda dadka ku ridayey iyagii laftoodii inay isku ridaan baqalo oo sidii oo kaleeto guryuhu ku dumaan waa daalimka jazihiisa ilaahay duniduu soo dedejiyaa. midka hadda masaakiin madaafiic la dhacay ee guryo iyo masaakiin iyo duminaya, laba nin oo bannaanka qoryo isula baxayna waa qadiyad fidnadeeda ahaato, laakiin dad masaakiin iyo guryo iyo masaajid madfac la dhacayaay cuquubadaa dulmigeedu ma raagi doonto. baasi barana markii uu dadka madaafiic la dhacay dulmigeedii isagoo kabala abu cararay. cuquubadaa dulmiga cuquubadiisii kama daahin, xukunkiisiina ma raagin, dowladdiisiina ma sii jirin. dad muslimiin oo abriyo oo dulmidood guryo ku dumiso dowlad laguma noqdo, xukunna kuma jiro. ilaahay dowlad muslim sheeganayso daalimo ah wuu dumiyaa, laakiin mid gaaroo cadaalad ku dadaalaysa wuu baaqa yeelaa. waxaa hadda intaa loo samaynaya maamulka ee Somalilan xukun weeye, wax kala maaha. waxa meesha yaallaaye waan ku xukumayay xukumi maysid sooma,
markaad sii ururiso nuxurku waan ku xukumiyo xukun weyseed xukumku kii shalay Hargeysa lala dhacayna kii la dhacay baa dumay kii xamar lala dhacay shalayna kii la iyo daraadna labadaba kii la dhacay baa baaba'ay oo dumay kan hadda la dhacay masaakiintana isaga dulmigeeda adduunka ku dhadhamin doona cuquubadeeda aakharana ciddii ka qayb gashay cuquubadeeda way sugi doontaa dadkaasi waxay mudan yihiin in sharciga Ilaahay u soo noqdaan waxa dhacay dhiig daatay iyo maal burburay iyo baahida dhibka ka dhacay waxay la tahay xalka ay leeyihiin in culimo loo saaro sharci Ilaahay lagu kala xukumo way markii muslimiintii hore dagaalkii Sifiin uu dhacay khaliifkii muslimiintii Ali radiyallahu anhu warda oo ijmaac lagu yahay muslimiintuna bay'an la galeen ragii ninka taqaanaan oo jannada lagu bishaareeyay ciidankii Muawiya reeshaan isku dhaceen dagaalkii markuu dhacay xalku waxay noqotay in rag ay u saaraan oo taxkiim lagu kala xukumay noqotay wa muslimiinta dhaxdooda markay muslimiintu wadaarada gobolka Samarqad la yiraahdo ee ciidamada muslimiintu furteen gaalay ahaayeen looma dulmi bay tirsadeen xilligii Qutaybah ibn al-Baahili kutub taariikh say sheegeen markii Umar ibn Abd Aziz xilka yimid waa dambe deegaankana uu madax ka ahaa nin la dhihi jiray Sulaymaan ibn Abi Sari dawladii maadaama waxay dhaheen wadanka naga qabsateen muddo ma haysataan dulmi waa ugu soo gasheen dariiqii islaamku la rabay inuu jihaada maydaan noo soo marin dacwad baan qabnaa noo fasax amiirul muuminiin Umar ibn Abd Aziz uu dacwoonayna hulwaaye wafdigu soo kaxay diray ordada dacwadii bay u soo sheegeen waxay u yimaadeen isagoo gurigiisa dhisanayo hagaajinaysa islaamtiisuna bulkeetay u dhiibayso markay u sheegaan warqaday wateen buu gacmaha intuu iska dhaqay buu gadaal wuxuu kaga qoray Sulaymaan ibn Sari nimanka qaadi sharciga u saar dulmigay sheeganayaan wuxuu qaaligu xukuumada fuli ninkii waa yimid iyagina waa loo yaray muslimiintina waa loo ciidan dhan oo wadanka haysto dad shacab ay ahaayeen xaq darra ugu qabsateen bay ku doodayeen qaadigii jaamici waxaa la dhihi jiray Xaadir ibn Jumayr baa la dhihi jiray qaadiga wuxuu xukumay muslimiintu khalad inay ku galeen wadankana dadka uga baxaan maalin bay ahayd habeenkii markuu waagu bariyay hal ciidankii muslimiinta deegaankii kuma jirin waa baneeyeen xukunka sharciga ka waran muslimiin wadan qabsaday ay gaalo dulmi baa lagu qabsateen uga dacwoodeen buu qaadigu intuu xukumo baa ciidanku bixi jiray kadib waxayna waa baxaynaa haddaan dariiqa cusbaa soo maraynaa waxay dhahay saaba haddaad tihiin iska jooga iyagina waa islaamin waxay dhahay weliba waxaan oo kale dowlad ciidankeedii meeshuu qabsaday qaadi intuu xukumo baxaysa taariikhdaba lama maqal xaakim baan ahay xukunka sharciga loogama weynaado Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dagaalka Muawiya markuu socday baa alaab ka luntay tuuta dagaal baa ka lumay markuu soo noqday nin Yahuudi ah haysto arkay waraana soo kaygii ma hol mali ana iga tag markii la murmay wuxuu yiri hadaba qaadigii miinoog Ali waa amiirul muuminiin ninkan waa nin Yahuudi muslimiinta ku dhaxnool qaadi sharax la loo yimid Ali wuxuu yiri ana iskale ninkii kalena wuxuu yiri ana iskale qaashu wuxuu yiri Ali ma haysata marxaati kaasoo laba marxaati baan haystaa maxay yihiin wiilkiisa Xasan iyo nin kale oo keenay oo mawlaahu ahaa wuxuu yiri ninka waan aqbali laakiin wiilkaaga marxaati kuma galo oo wuxuu yiri nabiga alayhi shabaab ahli janna ha uu yiri laakiin wiilkaagu Xasan marxaati kuma gale marxaati kale ka zuur أنا أريد مرخاتك ربما يالك بس وي منك ما الله حكمه وحنا يا عليه منك مرخاتك إنسان ويا قال صعب مركي وسوء لي سجن الإسلام ما ذكر ترى هم على هذا منك ودك عايزتي هذول تاس خمسطان تقاضي شرع اللوجي وذي كوح حكم يريد يكبه
hadda wax ku qabsato oo sii xiri marka hore daladu dirinba habta lagu sii taxaab sharciga islaamku wuxuu yaqaanaa qaadi xukunka sharciga dawlad iyo xaakim waa ka awood badan yahay muslimiinta khilaafkoodii sifiinna waxaa lagu damiyay taxkiim sharciya muslimiinta iyo samarqan gaaladiina taxkiim sharci ay ciidamadu gobollo uga baxeen markay si qadiyad shakhsi amiirul mu'miniin ali iyo yahuudi isku qabsatayna qaadiga muslimiinta ninka kale uu xukumay waa laga leeyahay inuu garto sharcigu qawaacid buu leeyahay cadaaladda saas darteed dadka muslimiinta markay isqabtaan waxa hadda la isku hayo waan ku xukumi maysid iyo xaq baan u leeyahay inaan ku xukumiyo xaq uma lihid wey taa lafteeda iyo dhiig daatay iyo xoolo la dhacayba muslimku xalka daalika khayrun wa axsanu ta'wiilan saasaas haddana idinku khayr badan iyo nabad iyo walaaltinimada aakhiradiinna iyo adduunkiina soo socda labadabana xukunkana ay farudduu ila allahi warasuuli baa ugu khayr badan wax kale haddii laga raadiyo intan hadda qayliyayseen dhinacyada kala safan ee la kala safan wixii loo dhiibaayey waxba ka keeni maayaan saa darteed dadku muslimiintii waxay ku fiican tahay talada rabbigood inay qaataan jidka rabbigoodu jeexa inay qaraacaan in sharcigooda iyo kitaabka ilaahay ay isula noqdaan iyaga waa un tusaale inta kaleen isku haynoo dhanna dheh dhulbaa isu qabsanay beeraan isu qabsannaa soomaalidu hadda laalaankan aan samaysanay waxaan filayaa wax kaley ku mashquulsan yihiin hadday inta wax kala nabad ka helaan xuduudaha magaalooyinka isku wada qabsan doonaan waayo meel walba dhinac reer u badan yahay dhinaca kale waxbaa ka dega dhinac kastoo maamul goboleed sheegto ka kale reer uu sheeganayaa dhinaca kale ka dega magaaladan xaggay raacaya xaggaa looga tarin un sidii afrika xuduudaheeda laysugu leyn jiray ma dhexdeedna xuduuda isugu wada layn doonaa waa un fayska wejiga labaad ee soo socdae dagaalkeenna waa haddana isaga weji qabiiliyo laanlaan deegaankaasi anaa tan xukumaya anaa ku xukumi leh oo weji labaadoo soo socdo hadda wax oo yar daran bay ku mashquulsan yihiin waxaasoo dhan haddaan qaacidada ka dhiganno taxkiim sharci islaama inaan gelinno oo sharci islaami iyo dad ahludiin iyo cilmiga lagu kala saaro aakhiradii adduunkeenna waa badbaadaynaa haddii kalena allahuma raxmatak allahuma inaa nasaluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ات نفوسنا تقواها اللهم زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر